والله وقت الديمقراطية كان وقبعه أو بلارنتيسا أي نقطة واحدة ديمقراطية أنا شغالنا وحوي أنا وحنا ديمقراطية أكتيفيست إنه أولوية ديمقراطية هذه وحكور إيمانا ديمقراطية كأي مادنا هذا كم جري يعني مرة ولا بدأ وأنا وقعته وحنا مشان وجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaynu galaynaa qaybta labaad ee taxanaha Cabdiqaadir Salaad Cali Longe qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa barnaamijka hadda aad garow u joogto oo intii dambe ka shaqeynaysay oo nidaamkan qof iyo cod oo qofku toos uu masiirkiisa u go'aaminayo oo cidii matalaheed uu dooranayo inaad wax ku biiriso aad ka shaqeynaysay iyo dimuqraadiyadda Puntland iyo sida isu qaadan karto iyo waxay ku kala duwan yihiin iyada iyo Yurub oo aad muddo dheer ka shaqeysay wax ku baratay laakiin inta aan gelin arintaas waxaan rabaa hal mar inaan dib kuugu celiyo waayihii Kismaayo maxaa ku xusuutaa si kooban maxaa taariikhda magaaladaas dadkii saameynta ku lahaa ciyaartoydii Soomaaliya dadkii magaca ku lahaa Kismaayo horta waxaan ogahay inay xusuus kugu leedahay oo wax badan agtaada ka tahay marka bal maxaad ka oran lahayd aad iyo aad waad iga dareemaysaa taas su'aasha keentay inaad ku soo noqoto barrabaad waa maasan tahay Kismaayo waxaa ka yimi runtii saraakiishii waddanka dad magac dheer ku leh waxaa ka yimi لاعبينتي وقيمها بدنا كبدا عقد سوماليا سومرا سبورتيغا كسمايو waxay kaga jirtay haday nambarka koowaad qaar kood baa nool qaar ka dhintayna Allah ha naxariisto wax soo saarka beeraha xoolaha dekada Kismaayo ku taalay waa meesha xoolaha laga dhoofin jiray wax soo saarka gosha iyo asendooyin ku yaala Ilaahay baa ogsaday loogu noolaa runtii hadii ay diasporada hareer Kismaayoodka maanta ay ogaan lahaayeen meesha aan ka soo jeedno Kismaayo ah waxa ku jira resources ah lama baahnaan lahayn Soomaaliya meel kale inay biisho ooladan loo ordaayay iyo waxyaalaha kale oo meeshaas yaala oo kheyraada ama malay ha noqoto ama wax soo saar beereed ha noqoto ama xoolaha ha noqoto wax yar bay isku darsatay marka taa weytan madaxayga ugu waxaysa mar walba oo aan maalin nolosheeda intii soo martay aanan ka bixin Kismaayo iyo dadkii ka yimi iyo asxaabtii runtii reer Kismaayood waa reer Kismaayood waa dad هذا أنت دورك أنت جوكته هذا قلنا ولا لونه وسبتر إكسمايوت كي أصل السكون نبه هذا قروا يقاركونه وأن قلنا ضد قلنا وصاحب قلنا إيهن فرحات قلنا مركان سنة مركا كله وضع سلامة لونج هذا هيئات بعد كتر سنة هاي سودي سؤالي سلك هل كان محاكي قبطان شقي سنة سنة كهر بان إمي سبتمبر سنة كهر بان بونتلان إمي أنا ومركز الصعدة أنا إنديو شيء شخصي أو هي داس مركز ينلق كلهن لكن إنفوي أهان بانو إمي لما بلود بانجوجي دورشدي دجانا ده وصدق هذا وقرنا كده عادي بان فديي wixii dad isdaba maraya aniga waa ku dhex jiray laakiin dadkan way kahay aniga markaas rabooreed diraya sheegaya farxadan iyo mujizadan meesha ka socota dadka say ay ugu ololeynayaan u rabaan waayeelo dhalinyaro dad dumar xaamil ah waxaan arkay wax la soo koobi karo ma ahan biigana wuxuu ahaa 25 bisha oo subaxii doorashada la aaday oo salaada subax ka hor magaalada bay ahayd magaalo soo wada jeeda oo la tubnaa goobaha lagu codeynay marka taasa waxay abuurtay inaan isla bil gudaheed January anoo markaas delegation sirke wada Swedish International Labour Center wada inaan nimaano inaan la kulano hay'adaha markaas ka shaqeynayay oo civil society-ga waxaan la kulanay BDRC Quebec Human Rights dowladdan la kulanay
wasaaradaha markaas quseeyaan la kulannay qardhaan tagnay oo markaas aan xiriir fiican yeelanay dhinacaas democratizationka oo la doortay madaxdeeda marka taasaa waxay keentay markii inaan haddana ku soo noqonno hadda markii ugu dambeysay aan keenna tiim waxbarasho tareenaysiiya kansalkii markaas qarda ka abuurnay oo la kulmay ayagana 68 doorashadii dhacaysay oo gurigeena uu ahaa campaign center laba urur oo kala duwan looga ololeynayay iyo midaan 2021 aad goobjoog u ahayd maxay ku kala duwanaayeen adiga markaad isu fiiriso taas kolley wiil yar oo gurigoodii laga ololeynayo midaana nin weyn oo observer oo waxa dhacaya raba inuu wax ku biiriyo horta wax la gaagixiyay bay sababtoo Soomaaliya waxay ku socotay dariiq runtii wan la isdooranayo madaxweynayaal baa isbedelay ra'iisul wasaarayaal baa isbedelay wadan 9 sano gudahood waxyaalo badan oo Afrika ay ku faanto soo maray bay ahayd madaxweynayaal sharaf leh baa ka tagay xilka Allah u naxariistay way dhinteen hadda ra'iisul wasaaraha sidoo kale marka tan soo celisay waxa weeye war way suurtooda in generation baa jira aan chance u soo helin democratizationkaas iyo processkaas marka inaan naga sheekayna dadkeenaan ka warhaya oo soo ogaa in Soomaaliya ay doorasho ka jiri jirtay campaign ka jiri jireen xisbiye ka jiri jireen marka taas way tan kaliftay laakiin midaan 2023 degmo baa ka furfurnayd Soomaaliya midda 68 oo vote khasaaro loo bixiyay oo la yiraahdo corruption badan baa ka jiray wax badan baa isdaba marsanaa wallahi horta cabirkeyga oo macnaha cimrigeed markaas ma weyneen oo aniga very excited waxaan ku ahaa campaignada socday iyo durbaankaas dhacaya durbaankaas dhacaya baan waxaan ku ahaa iyo markaas oo haddana kadib ay dhalatay in madaxweynihii la dilo isla markiiba ay bilaabatay inay dadkii ay muujiyaan inay ka xun yihiin wax dhacay inqilaabkii dhaco marka tan hadda barnaamijkan duubayna adduunka oo dhan baa laga daawan doonaa way ka duwan tahay waqtigaas oo aysan jirin media xoog leh aysan jirin adduunku xiran hadda adduunka hadda international baa naga tegey oo Lord Berikor halkaa noogu yimi adduunkii baa indhaha ku haya meeshaan yaroo dhibacda ka ah Afrika oo tiigsanaysa inay dadkoodii ay u horseedaan inay codkooda dhigtaan marka waa very fantastic wax weyn baa u dhaxeeya Cabdiqaadirow nidaamkan dad badan baa ka hadla qof cod dadka qaybtood shaki bay geliyaan waxay yiraahdaan hashanaas adag iyo weesna maxaa kulmiyay dani waxa la yiraahdaa hadduu ka shaqeynayo qof cod waqtigiisa intii tagtay uu ka shaqeeyo hadda maxaa sanadkii u dambeeyay keenay gudigan iyo maaragtay wasaaradaha la kala bedelayo iyo barnaamijkan madaxweynuhu hadda leeyahay hadduu dhabiga yahay adigu waa la kulantay madaxweynaha maxaa idin dhexmaray waxaan dhexmaray inaan weydiiyo sida ay dhabta iga tahay doorashadan oo uu ii sheegay inay arrintan go'aankeeda uu leeyahay uu kama dambeys wax kale oo ka dambeeyay in jirin inuu rabo inuu legacy ka tago inuu noqdo madaxweynihii 2001 bay ahayd inay Puntland ay aado processka hadda amarayno 3 sano hadda dastuurka fiirso 3 sano gudahooda markii la asaasay Puntland waxay ahayd inay doorasho aado marka 21 sano kadib in uu noqdo qofkii markaas fuliyay arrintaas waxaan ka dareemay inay taasaana kaliftay inaan marka aniga aan ku dhiiray naftayda inaan sii wado waa ballanqaadka madaxweynaha aniga aan weydiistay oo una Cabdiqaadir kolley idinku hay'adiinaan iyo saaxiibada caalamiga ah ee Puntland ka caawinaya dimuqraadiyadda doorashada aad taageeraysaan ma midda local councilska oo golaha deegaanka basba mise waa ogashihiin haddii wax dheeri lagu daro oo baarlamaanka lagu daro oo extension yimaado arrintaa ka hor waxaa horta waxaa anaga Soomaal haddaan nahay degdeg baan qabnaa waligeen waxaan ka hadalnaa wax markaas aan ulin warheeda meeshaan waxaa yaala doorasho degaaneed oo dowladda hoose oo 37 ah oo hadda dadkii ka shaqeynayay ay direen shaqaalahoodii ay ku maqan yihiin Puntland
seejooyinka ay jiraan in diiwaangelinta mardhow ay bilaabanayso in doorashadii deegaanada ay bilaabanayso wax kaloo oo loo keeno carqaladeyn lagu carqaladeynayo taa inay hor istaagaan taa runtii waa wax meesha aan oolin meesha annaga waxa noo yaalla waxa weeye oo aan u joogno deegaanadaas maanta aadaya dhalinyaradaas maanta iftiinka u soo baxay inaan kala qayb qaadanno oo aan dhiirigelinno adduunkana aan tusno oo aan saaxiibo u yeelno taawitaan meesha u joogo laakiin cabdiqaadirow dadka tuhunkan muujiyey in arrintan oo extension ku hoos jiro dad caadiga oo suuqa iska jooga ma aha waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore ee guddiga kumeelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre oo aaminsan in madaxweynuhu uu extension inay hoosta u taalo la rabo in nidaamkan lagu hoos qarin idinku waxa aad taageeraysaan 37 degmo local councils inuu ka dhaca mise waa ra'yiyan caadi bay idinla tahay in baarlamaankeena lagu daro golihii baarlamaanka haddii la qabto kuwan ay soo dhamaato arrintan golahani wakiilada ma lagu dari karaa iyaga ma la aadi karaa wallaahi waqtigii democratizationkan uu kobco oo ballaarintiisa ay noqoto wax democratization ah annaga shaqadeena waxa weeye aniga waxaan ahay democratization activist nin u ololeeya democratization haddii wax ka hor imaanaya democratizationka ay imaadaanna hadda kuma jira aniga mar walba waa inaad ogaato waxaan meeshaan u joogo meeshaan uma joogo waxaan ahayn dhiirigelinta iyo saaxiib u samaynta democratizationkan Puntland ka bilowday oo la rabo inuu Soomaaliya ku faafo oo la rabo inay deegaamada kale ay nala qaataan oo ay dadkooda u horseedaan waa in ummad kasta waa inay hore ka socoto nidaamkii la bartay marka mar walbaba dad baa u dhibaya oo wixii hore raba taasna hadee ka fakar hooyo uur yeelatay cunug caloosha u galay oo dhibic ay ku beerantay aasaaskii nolosha korkii baa diidaya walac baa imaanaya waxaa imaanaya mantag waxaa imaanaya wixii inay korki diido laakiin hadda maxaa ka dhashaa waxaa ka dhashaa wax fiican ilmaa ka dhasha wanaag baa ka dhasha horumar baa ka dhasha jacayl baa ka dhasha hooyadii inay faraxdo ilmihii inay noqdaan ilmo lagu adduunka loo jecel yahay hadda annaga taan raadinayna waxa inay dhasho oo foolato waxaan wax dadka ay ku farxaan oo taariikhdooda gala in ay dhammaato inay waa naloo soo dooray inay naga dhammaato oo ay adiga iyo generationkiinaan dhallinyarada oo vibrantiga oo meeshaan ku arkay oo meediyaha iyo meel walba ka muuqda inaa heshaan platform runtii aad istaheshaan 2022 taa weytan annaga aan dhiirigelinayno laakiin kursi la isku haysta iyo saasa annaga waa aragnaa waxaan dhab maaha iyo haddee meesha dowlad baa joogta madaxweynea jooga madaxweynihii hadduu yidhi aniga intaasaan maantay u horseedaya Puntland in la saacidaan qabaa cabdiqaadirow saddexda degmo markay ka dhacaysa waa joogtay kadib iyo ka horna meelo kala duwan baa tagtay heerka diyaarsanaanta dadka inay codkooda dhiibtaan biseelka dadku rabitaanka ay waxaan u rabaan maxaa ku macnayn kartaa waxaan ku macnayn karaa maanta aniga waxaan joogaa usbuuc Puntland waqtigan hadda oo kalaan soo degay exactly saacadan usbuuc ka hor baan soo degay meel walba aan istaago farooriyaha dadka democratization baa saaran qof iyo cod baa saaran wax kale oo farooriyaha saaran ma jiraan markaasaa ogaan kartaa ama makhaayad tag ama dadaan isgaranayno la sheekayso ama hoteelka aan ku deganahay dadkii ugu horeeya oo sheekaysanaya aan maqlayo qof walba faruurihiisa maanta reer Puntland ah waxaa saaran democratization marka waa u jeedaa inay tahay meelahaas aad martay marka dadka aad leedahay wax kale ka hadli maayaan qof cod baa laga hadlayaa tii hore oo saddex degmo hordhac ahaydna aad joogtay aad ogeyd degmooyinka markii la qabtay inta ay qaadatay in la fariisiyo maxkamadda sare inay ansixisana inta ku qaadatay la ogaa ayl wixii ka dhacayna aad ogeyd oo aad warkeeda haysid 37 degmo oo hadda wasaaradda arrimaha guduhu ay guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka u gudbisay xuduudeyntoodina qaylada ka yartay aad warkeeda haysid ma kula tahay
waqtiga yar harsan lagu qaban karo for your experience inta Sweden joogtay inta doorasho ka shaqeynaysay dhulka laga qabanayo aad taqaanid aniga indhahan wato waa indho runtii anu aabayeelaynin waxaan ka ahayn runtaan arkay waxa weeye qof iyo cod iyo democratization saddex degmo ka dhacay oo nabad ku dhacay horta waa soo arkay dadkii oo aan la uleynaynin oo ayaga isxilqaamaayo ay qaadatay hataa saacadooyin waqtigii loogu talagalay inay sii joogaan marka horta taas nabadda ku dhacday saddexda degmo ku dhacday waxay bixisay in ay suurtoodo inay dadka aadi karaan doorashooyin markaa tan ka ballaaran oo Puntland oo dhan ay aadi karto taa waa horta miisaanka ugu weyn oo annaga aan aragnay oo na keentay nafteena annaga ma riski garayneen haddii ay jirto cabsi laga qabo processkan marka inay wax dhacaan hada waa xaasha kullah wax waa dhacayaan laakiin waqtiga farsamo ahaan technically laakiin farsamo ahaan 37 degmo waqtiga hadda muuqda ma looga shaqeyn karaa waa looga shaqeyn karaa wayna socotaa mashaakilkeena waxa weeye oo meesha hor yaalla waxa weeye waxa la gelinayaa shaki wax bilowday oo fiican maxaa shaki u gelinaya ma ka qayb qaadatay xisbiyaa jira doorashadii baa furan oo aad ka qayb geli kartaa way dadka cabsidan oo aan macnaha libaaxi baa tubalada soo galaya dadka cunaya bilaa caleeh waxa waaye ma qabato dadkan ha laga xishoodo hana loo baqo dadkan u baahan oo runtii tabartooda liidato una badan 80% dad 40 ka yar gruubkeenan marka hadda aan ka hadlayo aniga oo 65 iyo waayeelka ah moogtahay inaan gruubkeena inaan ka nahay 5% society-ga Puntland 5% baana oo gruubka ka sii weyn oo 75 markii la gaarana 1% waa ka hooseeya marka yaa ka dhageysanaya ma dhalinyaradan maanta jaamacadaha ka soo baxay oo adduunyada tagay oo maanta adduunka digital ah oo online ah ma yaa ka dhageysanaya inay ay dhahaan roy bahal baa soo socda waxaan aan ka hor istaagno taa waa ku ceeb ha laga qayb qaato democratization-kan dowladdaana waa dowlad runtii ammaanteeda ku leh inay arrintan ay soo bandhigto hadday ku guulaysato degmooyinkaas loo joogay degmooyin badan baa looga soo adkaaday oo ay ogolaadeen marka wax baqitaankan aniga lagu saleeyo garan maayo hadda gabagabadii bayna joognaa barnaamijkana adigu war badan baa ka haysaa oo maaragtay dhinaca international community-ga iyo dadka barnaamijkan taageeraya waa ogtahay dadka hadda la leeyahay lug baa u laaban golaha wakiilada ka mid ah oo dhawaan ay ogtahay inay xasaanadda u diideen garsoorayaashii maxkamadda sare ee madaxweynuhu magacaabay siyaasiga Soomaaliga ana wax looga bartay inuu wax uu dadku u sheegayna marna yiraahdo caws baa baxay indha cagaar dadka ugu jeediyo marka kalena xagga uga yimaado marba dhinac isku qaado dawladdan waxay ahayd xukuumadda u horeysay oo Puntland soo marta oo first year sanadkeedii koowaad guddiga ku meel gaarka ah doorashooyinka intii shantii dhinaca madaxweynaha ka imaanaysa la keeno baarlamaan ku daro baarlamaanka la geeyo barnaamijkana waa socdaa how about haddii gabagabada barnaamijka la yiraahdo extension baa loo baahan yahay muddo aan غير dastuuri ah oo shantan dastuurka ku qoran ahayn waana looga bartay siyaasiga Soomaaliga inuu aqliga dadka ku ciyaaro oo wuxuu rabo hadba dadka u keeno oo wixii lagu dhaariyo gacanta saaray maalin kasta aragnay baarlamaankii hadda tobnaad oo halkan xamar waa ogeed wixii ka dhacay oo inta la isku dayay laga laabtay for your experience haddii arrintaa dhacdo maxaa imanaya idinku se ma la shaqaynaysaan nidaamka ma sii soconaysaa hawshan midaan soo noqonayso horta dadka qaba u malayn maayo inuu nambarkooda dadka qaba waa dad xukun bartay inay wax xukumaan si qaab darana wax ku xukumaan waa xaqiiqda qaab darradaas baa la isku haystaa ma lagu socon karaa mise dadkii baa loo celinayaa codkooda
marka doodaas oo mar walba ku darsasha iyo balaan kale ka dambeeya iyo waa dad cabsi ay ku jirto waxa wada oo ka baqaya dadkoodii dadkiina ka baqayna haddii aad doonayso inaad ummaddan hogaamiso hadda 2022-23 baan gelaynaa dadka u fasax inay codkooda dhiibtaan xisbigaada haddaad ka gadi karto dadka ka gad xukunka saas ku gaar waa lagu taageeraya taawaytan marka bartinariskiinu ma qabtaan walaaca ah waxa inta muuqata aan ahayn inaysan beriga dalka soo baxay annaga waxaan qabnaa maanta iftiinkan Puntland ka soo baxay inuu ku yar yahay horta Afrika hadda saa ula socoto West Africa iyo military baa soo noqdayba inqilaabyada dhacay iyo general wax la wareegay marka anaga taan dhiirigelinayno waxa ummad yar oo runtii u bareertay inay la soo noqdaan powerkoodi kaasaan dhiirigelinayna taana hadda wax naga hor istaagaya oo ma jiro dadkii baan rabnaa inay ka qayb qaataan waa aragtay saddex degmo to over 26% oo gabdhaha baa ka soo baxay ragii hadda tilmaamtay iyo 66 ah iyo intana gabdhooda ku jiray iyo waan ognahay hal iyo laba way hadday u baahato marka waxa la raadinayo waxa waaye dadkii inay platformkii siyaasadda ay ayaga masiirkooda ay ka taliyaan taana way anaga midda naga go'an laakiin arrintan gabdhaha kale oo afka gaar ugu dhufatay Cabdiqaadir mujtamaca Soomaaliga hadday gabdho dooranayaan Soomaaliland hadda waa ogeyd doorashadii u dambeysay oo ka dhacday gabdhaha hal qof xataa waa soo gali waayay golahooda wakiilada marka taageerayaasha qoladiinaan international community ka socota ma oran karnaa dadka Soomaalida wax aan xoogaa culture-kooda iyo ahayn baad sanka ka gelinaysaan oo ummado kale iyo western iyo dadana nala dhaqanahay laga keenay dadka ma loo daayo go'aankooda hadday haweenka rabaan iyagu wax u dirsan dhaqanka ku diidaya inaad gabdhaha hormaraan oo adduunka ay wax la qaybsadaan oo waxbarashadooda ay la imaadaan ay kula tartamaan wiilasha dhaqanka dhaqan xun ma aha oo waa dhaqan in la dhiirigeliyo u baahan sababta gabdhaheena waxay leeyihiin dadaal kadib gabdhaheena waa maanta annaga adduunka naga gada oo haddaa la socoto Norway Sweden Kongareeska Mareykanka dadka noogu jira ma wiilalba kuwa ku dayna leedahay ma hada gabdho way runtii ninkii gabdho dhalay baa og horumarka ay gaari karaan markay helaan fursad macnaha siinaysa chance inay wadankooda kula tartamaan wiilasha marka wiilasha naftooda way u runtaa inay helaan gabdho wax bartay doodaha wadanka ka qayb qaata hadday xisbiyo badan baa gabdhaha frontiga iga jira qaar baan arkay la sheegay inay ba gudoomiye ku xigeen yihiin oo ay ka qayb qaadanayaan processkan democratization-ka marka 2022 iyo 23 oo galayno Please yaanan ka hadlin gabdhaha guri noogu xiraanaya oo aan iska maamulanayna runtii wax la taageero ma aha waa maasantahay daawadayaal dhageystayaal guud ahaan barnaamijkii martoor toddobaadkan oo anaga intaas waxayna qaybtaan u dambeysay taxane laba qayboodle ah oo marti noogu yahay ama marti noogu ahaa Cabdiqaadir Salaad Cali Longe waa maasantahay waan ku faraxsanahay inaad daljirnaa joogtay aad iyo aad baa maasantahay I hope inaan isugu imaano Puntland oo dadkeeda ay wax doorteen marka ana isugu imaano waraysi kale xiiso leh insha Allah waadsan sakariye ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Bank aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga Salaam